العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأمرك لي برامج كني حكرورسي كارهنا قيبتي سوكوبيدا يقرفينتا بواقتا waxaynu maanta faalayn doonaa buuga la yiraahdo The Rules of Job xeerarka shaqada buugan waxa soo saaray qoraa Richard Timberler waa qoraa caana wuxuu ku caan yahay inuu wax ka qoro waxyaabaha kala duwan nolosha saameeya wuxuu leeyahay afar buug oo ciwaankoodu isku dhow yahay macnahooduna dhinac iska sawaabiyo afartuba waxay ka sameeyeen in waxa loo yaqaan rule ama xeer wuxuu leeyahay buuga la yiraahdo The Rules of Life, The Rules of Management, The Rules of Wealth iyo buuga afraad oo maanta soo qaadana The Rules of Job afarta buug ayuu leeyahay buugan maanta inoo qalan wuxuu ka mid yahay buugta caalamka ugu iibsiga badan wuxuu ka kooban yahay 273 page wuxuu ka warramayaa xeerarka shaqada uu isleeyahay qofku markuu shaqo qabanayo shaqada xeerarkaasi uu maraya noocyada yihiin xeerarka shaqadu ay qoraagu si fiican u tilmaamaya buuga waxaan isku dayi doonaa markaa balsi kooban inaan tilmaamo xeerarka uu qoraagu sheegayo ee qof markuu shaqeynayo ama shaqaalaha uu yahay looga baahan yahay inuu qabto qodobka koowaad qoraagu wuxuu leeyahay xeerarka shaqada waxaa ka mid ah qofku inuu xiiseeyo shaqadiisa shaqada uu qofku hayo ama ka hayo dawlad ama ka hayo shirkad ama ka hayo xaafad ama meel kale ka hayo kow waxa ah inuu qofku xiiseeyo shaqada haddii uu qofku shaqada xiiseenin waa inuu raasado shaqo kale oo xiiseenayo shaqadaas ha ahaato mid hooseysa ama ha ahaato mid sareysa ama ha ahaato mid dhexdhexaada qodobka labaad wuxuu leeyahay qoraagu horumari si uu aragaaga markaad shaqeynayso sidaad wax u aragto maalinba maalinta ka dambaysa bilba bisha ka dambaysa sanadba sanad ka dambeeya sidaad wax u arkayso horumari ama koboc ku samee qodobka saddexaad qoraagu wuxuu leeyahay maamul awoodaha aad leedahay aad qaban karto markaad shaqeynayso iyo markaad shaqaalaha tahayba maamul waxaa isku dayay inaad xadido labarafar oo la cadee markaad shaqaalaha tahay ama shaqaad ka shaqeynayso waxa muhiim ah inaad oo la cadeyso oo la cadeyntu waa mid muhiim ah waxa la yiraahdaa qofku shaqada uu hayo noocay doonto ha ahaatee bulsho iyo dad buu hayaa ama wax buu ka iibinayaa ama adeeg buu qabanaya labadaba xaan buu qabanaya labaduba dad bay u dhaxayaan waxa muhiim ah markaa dadka uu la shaqeynayo iyo kuwa si oo shaqadiisa xeer u leeyahay qofku oo la cadeeyo lambarka ku xiga qofku inuu qorshe yeesho qorshahaasi ha ahaado mid dhow ama ha ahaado mid dheer labadaba qoraagu wuxuu leeyahay xeerarka shaqada waxa ka mid ah qofku inuu ka leeyahay qorshe qodobka kale ku xiga qofku waxa muhiim ah markuu shaqaalaha yahay ama uu shaqo qabanayo inuu doorkiisa ogaado doorka uu leeyahay oo shaqada ka qabanayo noocay doonto ha ahaadee inuu ogaado si doorkii haddii uu qofkii qaban waayo uu ogaado inuu wax ka gaabiyay haddii uu qabtana uu ogaado in doorkii looga baahnaa uu ka soo baxay qodobka kale ku xiga wuxuu leeyahay qoraagu ogow naftaada waxaad ku fiican tahay iyo waxaad ku xun tahay nafaqaan adigu waxa jirta waxyaabo aad ku liidato sidoo kale waxa jirta waxyaabo aad ku fiican tahay labadiiba markaas ay isku dheelito kugu noqdaan wixii aad ku fiicneed iyo wixii aad ku wanaagsaneed labadaba baro oo ogsano qodobka kale ku xiga qoondee ama yacni meel ku hubso dhacdooyinka iyo taariikhda waxyaabaha ku soo mara qoondayso ama calaamado taariikhda iyo dhacdada ku soo maraysa taas waxay ku anfici doontaa mustaqbalka inaad maalintii noocayo noocaas waxaas dhaceen si aad u ogaato markaa waxa muhiim ah inaad markaa nood karaysato ama meel ku qorato iska ilaali xanta markaad shaqeynayso ama shaqaad ku jirto xanta iska ilaali qodobka kale ku xiga dadka kala caawi dadka bilaa shaqada dadka aan waxba haysanin adigu dadka kulli wuxuuna baahan caawi oo waxay ka rabaan ama ay ka doonayaan waxa ugu yar ahaatee dadka caawi qodobka kale ku xiga fursadaha raadi fursad kastoo ku soo marta waxa isku daydaa sida ugu fiican inaad uga faa'iideysato adigoo waliba markaa baadi goobaya oo raadinaya qoraagu waxa kale uu leeyahay isticmaal ereyada wad mahadsan tahay iyo fadlan labada ereyba qof markuu shaqeynayo waa muhiim in qofkii wax siiya oo ku yiraahdo wad mahadsan tahay qofku wax weydiisanayna ku yiraahdo fadlan waxa ma dhiibi kartaa fadlan waxa ma siin kartaa
fadlan waxa ma qaban karta yani waa laba eriyo marka dadka sidii wala macaamilay hagaajinaya ma wanaajinaya noqo dhageysta wanaagsan qodobka kale ee muhiimka ah weeyaan qofku inuu dhageysto wanaagsan noqdo oo dhageysto qodobka kale ku xiga qofku waa inuu isku dayo inuu ku hadlo wax nuxur leh wax wanaagsan oo laga qaadan karo inuu markasta uu hadlayo oo ku hadlo hadii kale iska aamuso way qodobka kale ku xiga waxa weeyaan garo oo ogsoonow anshaxa meesha aad ka shaqeyso hadii tahay shirkad hadii tahay dawlad hadii tahay meel kale ogow anshaxa iyo waxyaabo laga dhaqmo Soomaalida waxay oran jirtay hadii aad tagto meel lagu ilaayahay insha Allah iska tiraa hadii adiga oo firfircoon aad tagto meel yani aan firfircoonida looga baahnayn oo shaqadaadan iyo waxyaabahan galaafan karta sida la doonayo ee lagu amray u qabo hadii aad ku qanacsanayna sida qofka uu soo sheegnay wax qurux badan aad iska tagto laakiin ma aha inaad kacaan ka dheerayso Soomaalida waxay jirtay qofka hadii qofka amrayo uu ka dheereeyo kacaanku ka dheereeyo dadka qofka waxa dhacda in hawshu uu qabanayba laga risan gareeyo ama laga eriyaba marka kacaanka ha ka dheereen in kolba wixii qabo lagu yiraahdo inaad qaatay waa muhiim iska ilaali beentu qofka isaga ay marka dambe ku noqotaa wax yani subcadiisa iyo waxa uu qofku wada dila ama isaga hoosto dhigta markaas ilaaliyadna waa mid muhiim ah iska ilaalisa marka aad hadlayso si jamaaca u hadal oo inaga isticmaal laakiin aniga isticmaal marka shaqaaladan ka hadlaya ama shaqo hayso laakiin marka kale waa isticmaali kartaa qoraagu marka wuxuu leeyahay qofku markuu shaqo joogo xeerkeedu waxa kamid ah inuu isticmaalo inaga laakiin aniga haduu isticmaalo waxa moodaa marka qofku inuu dadka iska dhex saarayo marka ama qurux badna ayuu leeyahay qoraagu qodob kale ku xiga ogsoonow maxaasira iyo maxaasirahayn marka shaqo qabanayso waxaad ogsoonaata maxaasira oo dadka laga qarsadaa iyo maxaasirahayn oo dadka loo sheega labadii inaad ogsoonaata iyadoo waa muhiim qodob kale ku xiga marka uu khilaaf yimaado ama muran yimaado sida loola tacaalo ama sida loo xaliyo baro hadii khilaaf dhaco ama ismarin waa yimaado sida loola tacaalo loo dajiyo waa inaad barato qodobka ku dambeeya waxa weeyaan garo xilliyada lagu baahan yahay hadii tahay kala haad hadii ay tahay waqti aad shaqada hor u qabato hadii tahay waqti shaqada xilliga yani qoraagu wuxuu leeyahay marka baro kalaha iyo waqtiga la kala hayn iyo maanta hadii maadaama shaqo qabanayso shaqaalada ama meel uu ka shaqeyso waxa muhiim ah in inta soo logaato qodobada badan in soo tirinay mid kasta gaarkiisa hadii looga hadlo waqti uu qaadanaya si guud meel kala duwan waa laga hadlay waana qodobo muhiim ah waana qodobada saldhiga ama halbeega u ah qofku inuu shaqo fiican qabtay ama xeerarkii shaqada qofku waafaqay waxaan jeclahay marka buuga intaas inaan ku soo koobo qofkii heli kara PDF kulli waa lagu helaaye waxaan kula talin lahaa inuu buuga akhriyo oo isku dayo inuu buuga si kooban marka qodobada aynu sheegnay kuwa ka yara faahfaahsan oo intaas uu sii akhriyo inta barnaamij kale mid ku kulmi doono